waa filim ku salaysan qiso xaqiiqo ah oo ka hadlaysa wiil faqiir ah oo tuuladiisa u sameeyay qalab biyaha dhulka ka soo saara si ay abaarta uga baxaan. Filimka The Boy Who Harnessed the Wind. Filimku wuxuu ku bilaamayaa waddan ka mid ah wadamada Afrika, siiba waddanka Mali, halkaas oo dadku dhulbeeroodkooda ka shaqeeyaan. Si kadiisa mid ka mid ah dadka shaqaalaha ah ayaa dhulka ku dhacaya, waanu dhimanayaa. Janaasadii markii gaadhay wuxuu sheegay wadaadkii in ninka dhintay ay ruuxiisu adduunka ku sii nagaan doonto. Walaalkii Trywell iyo wiilkiisuna ay sii wadi doonaan higsigii uu ninka dhintay nolosha ka lahaa. maalintii xigtay William wuxuu isku dayay inuu hagaajiyo raadiyo gurigooda yaalay, laakiin waxa ka qaaday aabihii oo islaha ka dhigayso saadaasha cimilada maalmaha soo socda. Wuxuu ka dalbaday aabaha dhalay William hagaajiyo saqafka sare ee guriga, halkay hooyadiina doonaysay inuu qabaysto ka hor intaanu iskuulka aadin. markuu soo qabaystay William aad ayuu u yaabay una farxay kadib markuu arkay inay waalidkii u soo iibiyeen darees uu iskuulka u xidho. kadib markuu xidhay dareeskii cusba, wuxuu gurigooda ku sii maray saaxiibkii waxaana isku raaceen iskuulka. William aabihii Trywell wuxuu bar ka mid ah wax soo saarka beerta ku iibiyaa suuqa. xilligii ololaha doorashada ayaa la gaadhay. Trywell dakhligii soo galay wuxuu ku bedeshay seed iyo dalag cusub oo uu beerta ku beero. dhanka kale William iskuulkii ayuu joogaa, waxaana maamulkii iskuulku ardayda dibadda ugu soo saaray si uu ugu sheego fariin muhiim ah. wuxuu ku yidhi waa inaad bixisaan fiiga iskuulka si aad maktabadda iskuulka u isticmaashaan. kadib iyadoo si adag loogu boorinayo ardaydu inay fiiga iskuulka bixiyaan ayuu roob soo da'ay, waxaana ardaydii ku laabteen fasaladoodii. markii xiisadii fasalku dhamaatay wuxuu William macalinkiisii Mike u dhiibay waraaqad ay ugu soo dhiibtay walaashii oo markaa doonaysay inay jaamacadda bilowdo. William wuxuu ku soo laabtay guriga isagoo niyadda ku haya hadalkii maamuluhu ku lahaa ee ahaa waa inaad bixisaa lacagta iskuulka haddii kale waa lagu eryayaa. William wuxuu isku dayay inuu guriga wax ku muraajaceeyo maadaama ay imtixaanna soo dhow yihiin, laakiin jawiga oo madow ahaa wuu awoodi waayay inuu wax akhristo. waxaana hooyadii ka dalbaday inay u shido faynuuska, laakiin way ka diiday oo waxay u sheegtay inay isticmaali doonaan mar kale oo ay uga baahi badan yihiin. waxaana ka dalbatay inuu casharada u akhrinayo intuu iska dhaafo aabihii caawiyo oo uu beerta kala shaqeeyo. subaxdii xigtay William wuxuu imtixaankii uu galay keenay darajo aad u hooseysa, waxaana sabab u ahayd natiijada xun wax akhris la'aantii. intaa kadib William wuxuu aaday meesha qashinka lagu daadiyo, waxaanu ka raadiyay wax la tuuray oo uu iftiin ka dhigto. siduu wax u baadhayay mar kaliya waxa uu helay matoor biyaha loogu talagalay, laakiin dhinac ayuu iska dhigay maadaama wuxuu doonayay ahayd wuxuu iftiin ka dhigto. waxaanu iska sii waday baadhitaankiisii. isla waqtiga waxa socday shir ay isugu yimaadeen dadka tuulada degan iyo shirkad doonaysay inay iibsato dhammaan dhirta tuulada ku yaala, laakiin duqii magaalada wuu diiday arrinka, wuxuuna ku taliyay haddii la gooyo dhirta in dadka iyo xoolahaba daad qaadayo. laakiin dadka tuulada degan oo sabool u badnaa kamay fakarin mustaqbalka iyo cawaaqibta ka iman karta, waxaanay go'aansadeen inay iibiyaan dhammaan dhirta tuulada ku hareeraysan. waxaana arrinkan dadka waday ka kow ahaa Jerry oo ay ilmaabti ahaayeen aabaha dhalay William ee Trywell wuxuu si gaar ah ula fadhiistay inaabtigii, waxaana u sheegay tuulala jaara inuu daad ka qaaday xoolihii iyo beerihii, sida awgeed uu ka tanaasulo iibka uu dhirta deegaanka iibinayo. laakiin Jerry wuu ku madax adeegay inuu shirkadda ka iibiyo dhirta deegaanka. maalintii ka dambeysay isagoo William wadada iska maraya ayuu arkay shirkaddii oo dhirtii jaraysa, waxaana ogaaday inuu deegaankooda u nuglaan doono iminka daadka iyo nabaad guurka. intaa kadib William wuxuu u tagay asxaabtiisa ay isku tuulada yihiin si uu la sheekaysto. dhalinyarada asxaabtiisa ay waxay markaa haysteen rikoodh aan shaqaynayn, waxaanay ka dalbadeen inuu u hagaajiyo. William wuxuu qaatay rikoodhkii guriga si uu u soo hagaajiyo, waxaanu markuu guriga tagay ka dalbaday waalidkii inay bixiyaan masaariifta iskuulka oo aanay run ahaantii awoodin inay bixiyaan. William wuxuu ku soo laabtay asxaabtiisii, rikoodhkiina wuxuu u soo helay baytari weyn waanu ku xidhay, waxaana ugu dambeyntii u suura gashay inuu rikoodhka u shaqeeyo. habeenkii markuu ku soo laabtay aqalkooda wuxuu arkay walaashii oo la taagan macallin Mike, waxaanu halkaa ku ogaaday in labadooda xidhiidh ka dhexeeyo. maalintii xigtay William iyo mid ka mid ah saaxiibadiisii waxay ku laabteen meeshii qashinka si ay mar kale uga raadiyaan waxay iftiin ka dhigtaan, laakiin markay xoogaa meesha joogeen kuna daaleen, saaxiibkii ayaa ku dhiirigeliyay inuu ka arguto macallinkii walaashii habeenkii la taagnaa oo uu baaskeelkiisa ka jabiyo. balse intaanu jabin William baaskeelka wuxuu ku arkay wax cusub oo intuu noolaa aanu hore u arag. wuxuu arkay inay laambadda baaskeelku shidmayso markastoo silsiladda cagaha baaskeelka la dhaqaajiyo. William wuxuu ogaaday wax cusub, waxaanu go'aan ku gaadhay inuu ogaado siday u shaqayso. waxaanu u tegay macalinkiisii Mike si uu mas'aladan wax uga weydiiyo. waxaanu macalinkii ku yidhi waxay laambadani la iftiimaysaa dabdhaliyaha ku xidhan awgii. maadaama aanu William garanayn electric generator ama dabdhaliyuhu wuxuu yahay, waxa uu faahfaahiyey macalinka, waxaanu u sheegay inuu dabdhaliyuhu kinetic energy u bedelo electrical energy. laakiin William wuxuu qawaday jawaabta uu macalinku siiyay, waxaanu macalinkii ka dalbaday inuu u ogolaado inuu maktabadda galo si uu isagu baadhitaan u sameeyo.
laakiin William wax lagu lahaa fiigii iskuulka sida awgeed baan loogu ogolayn inuu maktabadda galo. William wuxuu ogaa xiriirka uu macallinku la leeyahay walaashii, waxaanu Janiska uga faa'iidaystay inuu macallinku ka caawiyo inuu maktabadda galiyo. waxaanu u sheegay haddii uu ka caawiyo inuu maktabadda galiyo inuu isaguna ka caawinayo inay sii wada xiriiraan walaashii iyagoo waalidkii raali ka yihiin. macallin Mike wuu aqbalay waxaanu William geeyay maktabadda. inta kadib William wuxuu helay buug si gaar ah uga hadlaya tamarta. habeennimadii dambe waxaa dhacay wixii uu ka baqayay aabbaha dhalay William. dalagii sanadka dhan ay beeriyeenna waxa qaaday daadkii. intaa kadib William aabihii wuxuu u tegay in ay saaxiib ahaayeen oo ka shaqeeya shirkadda dhirta. waxaanu ka dalbaday inuu dhirtii dib uga iibiyo, laakiin saaxiibkii wuu ka diiday. muddo kadib markii la gaadhay waqtigii dalagga la goosanayay, reer William waxba ugama soo go'een beerta sababtoo ah daadadkii dhacay awgood, waxaanay kaliya heleen xoogaa gallaya oo ay cunaan. intaa kadib waxaa tuulada soo booqday madaxweynihii isagoo ololo doorasho wada, laakiin duqii magaalada ayaa madaxweynaha meel fagaara kala hadlay una sheegay inay mashaakil haystaan tuulada. waxaanu ka dalbaday madaxweynaha inuu marka hore xaliyo caqabadaha beeraleyda haysata intuu cod weydiisan lahaa, laakiin odaygii tuulada waxa si xun u garaacay ilaaladii madaxweynaha. maadaama aanu ku filnay raashinka beerta uga soo go'ay, waxay reer William iibiyeen saqafkii gurigooda, waxaanay siisteen cunto ay cunaan inta sanadka ka hadhay. Tyrell wuxuu go'aansaday inuu magaalada qabto oo uu la soo dagaalamo madaxweynaha masaakiinta dulmiyey. Williamna hooyadii ayaa u dhiibtay dhammaan lacagtii xaafadda taalay si uu cunto kayd noqoto ugu soo iibiyo. Tyrell intaanu magaalada gaadhin wuxuu arkay inay abaarta iyo gaajada kala siman yihiin dhammaan dadka degan tuulooyinka la jaarka ah, waxaanu gartay inay khalad ahayd inuu ka soo baxo reerkiisii. dhanka kale William hooyadii iyo walaashii iyagoo murmaya waxa uu soo galay tuug gaajoonaya oo doonaya inuu qaato raashinkii kaydka uu ahaa ee William soo iibiyey. tuugii wuxuu qaatay raashin 2 cisho wax ka badan aan la isticmaalin waanu cararay. William hooyadii waxay maqashay sanqadha, way soo baxday waxaanay aragtay dad badan oo gaajaysan oo u dhacay qolkeedii, qaatayna raashinkii kaydka uu ahaa ay ku tashadeen inuu hayo 6 bilood. markan William reerkoodii iyo barkamada dadkii deegaanku waxay aadeen meel mucaawina oo dadka raashin loogu qaybinayo. goobta waxa soo buux dhaafay dadkii abaartu heshay. raashinka meesha la keenayna wuu ku filnaan waayay dadka, sida awgeed waxa gudaha guriga raashinka loo sii daayay dad tiro yar, waxaana qof kasta la siiyay 12 kiilo oo sareena. waxaana dadka loo sheegay inuu sareenkaasi qofkiiba hayo 6 bilood. laakiin mushkiladda ugu weyn waxay noqotay qaabka ay dadka gudaha ku jira u bixi lahaayeen, waxaana dabada taagnaa dadkii raashinku ka go'ay oo doonayay inay raashinka boobaan. laakiin markan William wuxuu isticmaalay maskax badnidiisii, wuxuu helay meel la daloolin karo oo guriga gadaashiisa ku taala, waxaanay ka baxeen meeshii iyadoon cidna arag. iminka waxa guriga ku soo laabtay Tyrell, waxaanay xaaskiisii u sheegtay in la xaday dhammaan cuntadii kaydka u ahayd. rajada kaliya ay iminka leeyihiinna inay tahay raashinka uu William soo wado. dabcan sidii dhacday markuu William raashinkii keenay waxay waalidkii isu geeyeen sareenkii iyo xoogaa lacag oo ay hayeen, waxaanay u qorsheeyeen inay hayso 6 bilood ee soo socota. William wuxuu walaashii ka dalbaday inay u soo xado dabdhaliyaha ku xidhan baaskeelka macallin Mike, waxaanu u sheegay inuu doonayo dabdhaliye si uu tuulada biyo uga soo saaro. subaxdii xigtay William walaashii waxay ka tagtay gurigoodii, waxaanay u tagtay macallin Mike, laakiin intaanay tagin waxay William u dhigtay guriga dabdhaliyihii uu u baahnaa, waxaanay sidoo kale guriga dhigtay warqad ay ku leedahay waxaan u tagay si aan isu dabaro, reerkana dhibaatada cuntada ah ay iga bixinayaan uga dulqaado. William wuxuu qaatay dabdhaliyihii, waxaanu bilaabay inuu sameeyo qalabka dabaysha oo koronto ka dhalinaya dhaqaaqa, waxaana in badan caawiyay dabdhaliyahay walaashii u keentay. dabdhaliyahaasoo tamarta dhaqaaqa u bedelayay tamar koronto. William wuxuu sameeyay tusaale yar oo shiday laambadda raadiyaha, waxaanu ogaaday inay tani siin doonto koronto ku filan bamka biyaha, tuuladuna dhowaan biyo ku filan heli doonto. dhalinyaradii ay asxaabta ahaayeenna way caawiyeen, waxaanay u keenayeen dhammaan agabka uu u baahdo, waxaanu ku guulaystay inuu sameeyo qalabka dabaysha. laakiin intaanu samayn qalabka weyn, waxa William u tagay aabihiisii uu tuso tusaalaha qalabka uu sameeyay ee tuulada biyaha u soo saari kara. waxaanu u sheegay inuu sidoo kale u baahan yahay baaskeeladiisa si uu u dhammaystiro mashruuca uu wado, laakiin aabihii wuu xanaaqay, waxaanu ka diiday inuu jabiyo gaadiidka kaliya uu haysto. William aabihii wuxuu kala jabiyay qalabkii tusaalaha ahaa, waxaanu William ku amray inuu waxaan uu wado iska daayo, beertana kala shaqeeyo. William wuxuu tagay asxaabtiisii, waxaanu weydiistay inay ka caawiyaan siday aabihii uga sasabi lahaayeen uguna qancin lahaayeen mashruucan. laakiin markii dhalinyaradii u yimaadeen aabihii, baaskeeladana u weydiiyeen wuu diiday, waxaanu ku yidhi ii dhaafa guriga. على كل حال William wuu ku madaxadayga qorshihiisii ilaa ay ka aamintay hooyadii, waxaanay aabihii u weydiisay inuu siiyo Janiskii ugu dambeeyay. wuu ka aqbalay waanu raacay, waxaanu uga soo saaray baaskeelka qaybtii uga baahnaa. dhammaan bulshadii deganay tuuladuna waxay caawiyeen William, waxaanay ka qayb qaateen mashruucan hirgelintiisa. nasiib wanaagna way ku guulaysteen inay sameeyaan qalabkii, waxaana mar kaliya soo burqaday biyihii. dhammaan dadkiina way wada farxeen, waxaanay dib u bilaabeen inay beerahoodii beertaan. ugu dambeyntii William aabihii waxa wejigiisa ka muuqday qoomamo, maadaama aanu wiilkiisa marka hore garab siin.
bilooyin kadib tuuladii waxay kusoo laabatay barwaaqadii ay berigii hore ahaan jirtay oo kale, waxaana tuuladan sabab u noqday inay biyaha hesho abaartana ka baxda wiilka yar ee 11 jirka ah. Dhammaadka filimka wuxuu William u safrayaa waddanka Mareykanka si uu usii dhammaystiro waxbarashadiisa. Dhanka kale walaashii waxaa guursaday macallinkii Mike waxaanay u dhashay 4 carruur. Filimka The Boy Who Harnessed the Wind waa filim Ingiriis drama ah oo 2019 soo baxay, waxaana sheekadiisa qoray, director gareeyay, kana qayb qaatay jilaaga iyo soo saaraha Ingiriiska ah asal ahaana ka soo jeeda Nigeria ee Chiwetel Ejiofor. Filimka waxaa matalay Marcel, Aisha, Noma Demesweni, Lemogang Siba iyo Maxwell Simba.